بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم soo dhawaada meel walba aad adduunka joogtaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa sida ciwaanka ama title-ka ama thumbnail-ka ka aragtaan sidee qof uu ku xiisan karaa. Badankiina midaas oo isweydiinaysaan qofaa macnaha tusaale ahaan ka soo qaad qofaa saaxiibo tihiin qof oo waxnay dhahay qofkan ma ka arkaysid xiiseen badan marka sidee qofkan uu ku xiiseen doonaa uu ku soo raadin doonaa qofka daa mar walba adiga ka daba ordi jirtay sidoo uu siga ka soo daba ordaya ku xiiseen doonaa. Muuqaalkeen waxaa kuu sheegaya laba qodob oo haddii aad si saxan u raacdid qofka aad adiga daba ordi jirtay asiga markiisa ku daba ordayo. Soo dhawaaw marka hore YouTube-keena subscribe saar fiidiyoogana primary waaye sida ogtihiin kumatinga wax fikradaada ku soo qor. kow qodobka koowaad uu qofka ku xiiseen karo waxaa ka mid ah xiriirinta badan iska dhaaf qofka xiriirinin qofka tusaale ahaan haddii aan mar walba xiriirisid oo fariin u dirtid oo mar walba is aragtiin xiiseen meeshaas ma jirayso waxaad iska dhaaftaa xiriirinta dan iska dhaaf. waa qodobka koowaad oo qofka adiga bridda ordi jirto usmaan ku soo daba ordayo. qodobka labaad ee ugu dambayso ee qofka ku xiiseena waxaa ka mid ah hadduu uu wax ku dhaho diid tusaale ahaan kaal meeshan asla cunteeno kaal meeshan imaa ka diid wuxuu isleeyahay qofka haddii aa wax walba oo ku dhaho ka diidid wax walba ma ka hadlooya marka oo kuleeya meel isku raacina haddii aad ka diido qofkaas wuxuu ku sahlaysa inuu si fiican ku xiiseeyo. Muuqaalkan bartaas ku soo wasalaam calaykum.